السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أبدي شرفت له وكحرن جنوي أكاديمي. Welcome back again. Okay, هذا عشرة إني تحناها أو جرامكها يا ولي نص عضو. هديتها مركز الكومات وأنا صبوا غلص إن شاء الله إلا من قناة كائنات الكومات وسبسكرايب أترهضو. أصحابتي إن أد لو ذكتان سياد وفايدان كورسدان بلاش كأه. Okay, good. waxaan ka soo hadlay labada muuqaal oo maartay aan soo dhaafnay nouns-kii baan ku soo jirnay wataan soo bandhigay common nouns magacyada guud iyo proper nouns magacyada gaarka ah awjeeda that's good so aan guda galna maanta singular nouns. Okay, singular nouns good. So singular nouns waxa la yiraahdaa magacyada nouns-ka ayaa waxay noqdaan marna singular marna plural. Okay, magacyada marna waxay noqdaan singular oo keli marna waxay noqdaan plural oo jamac ah. Okay, good. So insha Allah halkan waxaan ku baran doonaa marka shuruucyo badan oo maaragtay nouns-kaasi ay raacayaan marka aad singular aad noun-ka aad ka bedelayso keli aad ka bedelayso oo aad jamac aad u bedelayso shuruucyooyinka kala duwan oo qofka la rabo in uu raaco ayaan insha Allah halkan baran doonaa. So inta uu maaragtay muuqaalku uu noo saamaxo insha Allah baan soo gudbin doonaa wixii kalena insha Allah sida kala maaragtay maalmaha soo socdo baan insha Allah soo gudbin doonaa. Good. Nouns can be singular or plural. Haddaba magacyadu waxay noqdaan marna keli marna plural ay noqdaan jamac ay noqdaan. When you're talking about one person marka aad ka waramayso hal qof animal ama hal xayawaan ah place ama hal meel ah or thing ama hal shay ah use a singular noun. Waxaad isticmaashaa magac oo keli ah isticmaal. Good. Tusaale an owl. Okay, owl waxaa la yiraahdaa baashaas guumeysta ayaa la yiraahdaa. Okay, an owl. haddaba marka sharci kale oo aan qaadan doono ayaa waxay tahay nouns-ku marka ay single ay yihiin waxaa la adeegsadaa ama la raaciyaa waxa la yiraahdaa article oo yani magaca hortiisa ayaa waxaad maartay soo xaadirinaysaa article ayaa soo xaadirinaysaa marna an ba isticmaalaysaa marna a ba isticmaalaysaa. So sababooyinka aad a iyo an u isticmaali doonto insha Allah haddaba muuqaalka ayay ka mid yihiin ayaguna sidoo kale waan dhigan doonaa. So an waxaad u isticmaalaysaa xarafka ugu horeeya hadduu uu yahay vowel hadduu yahay an baad isticmaalaysaa. That's why an owl. So ooda waxay ka mid tahay vowelska ayay ka mid tahay together. Ana waxaa isticmaalaysaa xurufta consonants-ka la yiraahdo ayaa maartay aad u isticmaalaysaa. A sheep. Okay, a sheep waad maartay markabkaasi waa a sheep ayay together. It is good. A train-ka a train baad isticmaalaysaa ayay together. A woman gabadha a woman ayay together. That's good. iyo sidoo kale ereyooyin kale oo aad iyo aad u tiro badan ay halkan ku xusan. A flower ubaxa a flower. So noun-ku hadduu mar yahay single hadduu yahay oo keli uu yahay article waa inaad isticmaasho laakiin noun-ku hadduu plural yahay ama jamac uu yahay wax article ah ma isticmaalaysid a iyo an labadaba ma isticmaalaysid haddii noun-ka plural uu yahay laakiin goormee waa goortaad article-ka isticmaalaysid waa noun-ka marka uu single yahay awgeeda. That's good. Article-kuna wuxuu sameeyaa magaca ayuu dhadhan u sameeyaa awgeeda haddaad flower keli aad iska tiraado xoogaa dhadhankii ayaa baxaya. That's why marka articles-ka loo isticmaalo. Okay, good. These are also singular nouns. Haddaba halkan sidoo kale waxaa ku xusan magacyooyin oo keli ah ayaa ku xusan. An aeroplane diyaaradda an aeroplane. So markiisid vowel ayaa maartay ayadaas waa vowel. A bicycle waa consonant. A bicycle bicycletiga. A boy wheel. A bus waa baabuur. A comb waa shanlada lagu shanlaysto. Bdaas waa silent ma tegaysid comb. Okay, a girl waa gabar. A key waa fure. A letter waa warqad. Okay, good. Yeah, a map waxa waaye maartay waa mapka caadiga dalka iyo waxaas maartay ayada map leeyahay. Good. A photograph waa sawir ayada photograph waa sawir camera lagu qaaday ayada photograph. Okay, a refrigerator waa maartay kan meesha wax lagu qaboojisto fridge-ka. Okay, good. A slide waxa la bahal caruurta ku ciyaaraan oo saas isku soo taraarixiyaan ayada slide leeyahay. A swing sidoo kale waa wifowga. Okay, swing wifowga waa ilmaha inta ku fadhistaan ku ciyaaraan. Okay, a van waa baabuurka yarka ah ayay together. That's good. So waxaad arkaysaa marna an baa la isticmaalay marna a baa la isticmaalay. Sababaha loo isticmaalayna waan soo sheegayo. Waxaa loo isticmaalaa consonants xurufta consonants-ka ka bilowdan baa loo isticmaalaa. Anna waxaa loo isticmaalaa xurufta vowels-ka ka bilowdan. That's good. Let's go on. Good. haddaba meeshan marka shuruucda ayaa ku xusan sida a iyo an loo isticmaalo. haddaba marka waxaa leenahay use a or an before singular nouns. waxaad isticmaalaysaa a ama an before singular nouns horaanta magacyada keliga ah. Use an before words beginning with vowels. Okay, yeah, an waxaad isticmaalaysaa xurufaha maartay vowels-ka ah ayaad an u isticmaalaysaa sida a iyo e iyo i iyo o iyo u. For example tusaalooyinka waxaa ka mid ah
inaad tiraahdo an axe, okay, an axe. Axe waxaa la yidhahdaa maaragtay axe waxaa la yidhahdaa baalka faska ayaa la yidhahdaa axe la yidhahdaa, so ayuu ka bilaabanaya. An egg waa ukunta, okay, an egg. An envelope waa bashqada warqadaha la gashta ayaa la yidhahdaa envelope la yidhahdaa. An ice cream kala dhuuqdhuuqo ayaa la yidhahdaa ice cream, okay. An igloo waxaa la yidhahdaa guryo la dhisan jiray waa hore oo maaragtay guri saas wareeg u ah oo circle ah ayaa la yidhahdaa igloo, okay. So wuxuu ka bilowdaa vowel ayuu ka bilowdaa. An orange yani waa liinta orange-ka ah. An umbrella dallada. An ankle waa adeerka, okay. Yeah. So antaas oo dhan kulli waxaad u isticmaalaysaa xurufahaas ay waxay ka bilowdaan vowels ay ka bilowdaan. That's good. Okay, good. But some words don't follow this rule. Like waxaa jirta xurufyooyin maaragtay ereyooyin kale oo sharcigani aanan raacin. For example, tusaale waxaa ka mid ah use a isticmaal not an ha isticmaalin before these words that begin with you. Haddaba waxaa jirta xurufyo shuruucdaani burburinayo ayagu ay ka bilaabanayaan vowel baa haddana aadan an isticmaalin, sida a uniform. So use as uniform waa uniformka dharka iskoolka carruurta ku aadaan. So uniform xarafka ugu horeeya waa u ayuu together, laakiin an ma isticmaalayso a baa isticmaalaysa sababtoo ah u-daasi waxaa loogu dhawaaqayaa way ahaan. Soo dhawaaqa imaanaya meeshaas ayaa wuxuu yahay dhawaaq consonants ah. That's why marka a loo isticmaalayo. So a uniform ayuu together saas baad leedahay. A university. So an university ma dhisa sababtoo ah u-daasi way ahaan baa loogu dhawaaqaya ayuu together. Yeah, that's good. So kuwaasi marka shuruucda burburinayo si gaar ah waa inaad u xifdiso waa. Okay, good. Use a before words beginning with other letters of the alphabets. Haddaba a waxaad u isticmaalaysaa xurufaha haweenka maaragtay kala ka soo haro ayaad a u isticmaalaysaa sida consonantska, okay, ayuu together. Yeah, sida consonantska sida a basket, a bowl, a rainbow, a car, a monster, a pillow, a hill, a watch, a house, a zoo. Are you together? Yeah, that's good. So kuwan dhan kulligood waa consonants way. Are you together? Yeah, basket waa dambiisha, bowl waa baaqoliga, car waa baabuurka, hill waa buurta, house waa guriga, rainbow waa qaansaar roobeedka, monster waa baal weyn oo xoogaa maaragtay carruurta lagu cabsiyo dad qalashada la yidhaahdo oo maaragtay wejigooda laga naxayo monster. Pillow waa barkinta, watch waa saacadda, zoo waa meesha xayawaanaadka duurjoogta ah lagu xanaanayo. Ayuu together. Yeah, that's good. So a baad u isticmaalaysaa dhammaan maxaa yeelay waxay ka bilowdaan consonants ayay ka bilowdaan. That's good. But some words don't follow this rule. Waxaa jira sidoo kale xurufyo kale oo consonantska ka bilowdaan laakiin sharcigaani aanan raacin. For example, use an isticmaal not a ha isticmaalin for these words that begin with h. So xurufahani h-ta ka bilowdaan an isticmaal sababtoo maxay tahay waxaad leedahay an eya baad leedahay an eya ayuu together. Eya waa qofka maaragtay wax dhaxla ayaa la yidhahdaa eya ayuu together. Yeah, so h-taas waa silent. Xarfiga h buu ka bilowdaa laakiin dhawaaqa ugu horeeyo imaanayo marka xarafkaasi aad ku dhawaaqdo waa e way, waa vowel e way. That's why marka an baad isticmaalaysa an eya. So h-taasi maaragtay laguma dhawaaqo. An ona, okay, an ona ayuu together. Yeah, ona. Yeah, so h-ta sidoo kale laguma dhawaaqayo. Oda tos ugu dhawaaqaysa an hour ayuu together. Yeah, that's good. An hour. So h-ta sidoo kale waa silent. So marka kuwaas waa kuwa sidoo kale marka xurufooyinkan kuwa burburinaya sharciga. Consonantska haddii waxay ahayd consonant hadduu mar u jiro waa inaad a aad isticmaasho, okay. Yeah, that's good. So kuwan gaarka ahna sidaas waa inaad maaragtay aad ku xifdisaa waay. Okay, that's good. So sidoo kale waxaan isla arkaynaa plural nouns, okay. Magacyada marka ay noqdaan plural ay noqdaan oo jamac ay noqdaan. That's good. When you're talking about two or more people, marka aad ka warramayso laba qof ama wixii ka badan, animals ama laba xayawaan wixii ka badan, places ama laba meel iyo wixii ka badan, or things laba shay ama wixii ka badan, use plural nouns. Waxaad isticmaalaysaa magac jamac ah ayaad isticmaalaysaa. Most nouns magacyada badankood are made plural jamac ayaa laga dhigaa by adding s at the end. In s gadaal looga daro ayaad maaragtay jamac looga dhiga. Waa most nouns waay magacyada badankood. So waxaa markaa halkaasi aan ka dareemaynaa in ay jiraan siyaabooyin kale oo magacyada plural looga dhiga ayaa jirto ayuu together. Laakiin badanaa magacyooyinka marka aad jamac ka dhigayso s baad gadaal uga daraysaa. Okay, good. Hadda wasla arkaynaa star waxay dhigta markay badan yihiin waa stars, s baad gadaal uga daraysaa. Bat waa baashan kibilayda waxay noqonaysaa bats ayuu together. Yeah, that's good. Bat
bats markay badan yihiin. That's good. Okay, mag waa koobkaasi, mags ayuu noqonaya. Are you together? Yeah, fan markay badan yihiin waxay noqonaysaa fans. Are you together? Cap waa koofiyadaasi maarta horeyda u dheer waxay noqonaysaa caps markay badan yihiin. Are you together? Yeah, that's good. sidoo kale hadda eraya maartay oo sidoo kale oo shuruucda saraacayo oo halkan ku xusan baan isla arkaynaa markay singular yihiin iyo markay plural yihiin. Bad waa shimbirta, jamacada birds, s baad gaal u darsaa. Broom waa xaqinka, brooms markay xaqimada ay bataan. Camel waa geelka, camels markay geel badan ay noqdaan. Desk waa kursiga dheer oo saas la iskula fadhiisto, desks markay ay kuraasta ay bataan. Doll waa boonbala carruurta ku ciyaaraan, dolls. Egg waa ukunta, eggs ukumo. Flower waa ubaxa, flowers. Okay, yeah, fork waa baashan qaadada baastadii lagu cuno, fargeetada, forks. Okay, game waa ciyaarta, games markay bataan. Lamb waa carruurta cunuga yarka laxda waxaa la yidhahdaa lamb, lambs markay bataan. Okay, nest waxaa la yidhahdaa buulka shimbirta, nests. Okay, markay ay bataan. Pen waa qalinka, pens. Photo, photos. Shirt, shirts. Spoon, spoons. Photo waa sawirka, photos markay bataan. Shirt waa shaatiga markay bataan, shirts. Spoon waa qaadada, spoons. soo dhawaaqana sidoo kale waa inaad saas u soo saarta. Are you together? oo dhawaaqa aad dhegeysato. Are you together? Yeah, that's good. So marka aad erayada aan ku dhawaaqayo muuqaalka jooji si aad u fahanto erayga dhawaaqiisa saxda. Are you together? Pronunciation-ka so important waay. I hope we are together. That's good. Okay, some plural nouns end in es. haddana sidoo kale buugga wuxuu xusayaa magacyooyin maartay jamac marka laga dhigayo waxaa jirta es ku dhamaadaan. Kii hore wuxuu ahaa s kaliya buu ka dhamaanayay. Okay, so waxaa kamid ah glass oo kale marka jamac ka dhigayso waa glasses, es baa u dambeyso. Bus, buses. Okay, brush, brushes. Bus waa baabuurkaas markay bataan, buses. So marka jamac ka dhigayso es baa lagu daraysaa. Brush, brushes saas buu noqonaya. Okay, brush marka lagu cadayo, brushes saas buu noqonaya. Together, yeah, watch, watches. saacada markay bataan, watches es baa lagu daraysaa. Fox, fox dawacada, foxes markay bataan. Are you together? That's good. Okay, ayagoo marka kale intaan ku arkayna beach waa xeebta, beaches markay bataan es baa lagu daraysaa. Branch waa laan, branches laamooyin. Box waa boxi kartoonka, boxes. Bush waa dhulka, bushes markay badan yihiin. Church waa meesha adoonta maartay kristaanka ay u cibaado tagaan, churches. Dish waa bahal wareegan oo cuntada lagu karsado, dishes markay jamc noqdo. Are you together? That's good. Dress, dresses, dress waa dresska dumarka xirtaan, dresses markay bataan es baa lagu darsaa. Sandwich, sandwich, these are silent. Sandwich waa cunno yar macaan oo fudud oo la cuno. Okay, sandwiches. Are you together? Witch waa saaxir, witches saaxir wali oo qof dumar ah, witches. Are you together? Plural markaa ka dhigaysid wuxuu noqonayaa es baad gadaal uga dareysaa. haddaba meeshaan marka waxaan ku arki doonaa sharci oo sababooyinka taasi loogu darayo shuruucda maxay yihiin. When the last letters of singular nouns, haddaba magacyada keliga ah marka ay yihiin ay ku dhamaanayaan ch, haddaad aragto magaca ch ku dhamaanayo ama magac ku dhamaanaya sh ama magac ku dhamaanaya s ama magac ku dhamaanaya ss or x here, you usually add es to form the plural. badanaa waxaad samaynaysaa waa inaad ku darto es gadaal ugu darto si aad jamcad uga dhigto. So waa ch iyo sh iyo s iyo ss or x. Okay, waa magacyada intaan kusoo arkayna. haddii magac uu marku uu maartay uu ku dhamaanayo s sida bus oo kale, buses baad noqonaysaa. haddii magac uu ku dhamaanayo laba s sida glass oo kale, glasses. haddii magac ku dhamaanayo ch sida brush oo kale, brushes. Are you together? haddii magac ku dhamaanayo ch sharciga ayuu ka mid yahay, watches ayuu noqonayaa. Are you together? haddii magac ku dhamaado x sida dawcad oo kale, fox oo kale, foxes. Are you together? hadduu ch ku dhamaado sida beach oo kale, beaches. hadduu ch ku dhamaado sida branch oo kale, branches. hadduu ku dhamaado x sida box oo kale, boxes. Bush hadduu ku dhamaado sida bush oo kale oo ch, bushes. Church hadduu ku dhamaado ch, waxaasoo dhan. So sharcigaas waa inaad raacdo. Are you together? Yeah, that's good. So sharcigan ayaana hagayay. haddii magaca uu ku dhamaado marka uu keliga yahay ch ama sh ama s ama laba s oo israacda ama x waad jamac ka dhigaysaa es adoo gadaal uga daraya. waa sharciga labaad. sharciga hore wuxuu ahaa magacyada badankood s baa gadaal looga daraa markii maartay aad jamcad ka dhigayso. So labadaas sharci insha Allah baan maanta qaadanaynaa. muuqaalkeena halkaas ayaan kusoo koobi doonaa insha Allah. wax exercise maanta ma wato. So insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahanteen casharkaad fahanteen insha Allah. muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ka kulmi doono khayr tiro badan ayaan idinku ogahay.
wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu